وقيبتي لبا تاريخ دي محمد سياد بري waxaana idin soo jeedin doona aniga oo libax barqiya ay marka hore aynu ku yarnasano erey uu yiri Siyaad Barre aadiyaad ayaan ugu faanaynaa ka dhalashada aanu ka dhalanay shacbiga Soomaaliyeed oo aan marna ka haraynin dantiisa aynu ka sii aanba qaadna halkii ay noo joogtay 16 Oktoobar 1954 ayuu Siyaad Barre qaatay xidigtii ugu horeysay waxaanu noqday sargaal Siyaad Barre waxa uu laba xidigle u dalacay sanadkii 1955 isagoo oo sanadka 1957 noqday kabtan ama dhame kadib 1958 waxa uu madaxweyne Siyaad Barre noqday dhame ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana loo magacaabay xafiiska ciidanka booliska Soomaaliyeed 1960 waxa la dhisay ciidankii xooga dalka Soomaaliyeed waxaana hogaamiye ka noqday generaalkii sida aadka ah loo jeclaa Generaal Daawud Cabdillaahi Xirsi kadib markii uu geeriyooday sanadkii 1965 waxa jagadiisii qabtay Generaal Maxamed Siyaad Barre isagoo oo noqday taliyihii xooga dalka Soomaaliyeed haddaba Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhashay miyiga Garbaharey ee gobolka Gedo 6 Oktoobar 1919 Maxamed Siyaad Barre hooyadiis waxa la oran jiray Shaqla Warfaa waxayna geeriyootay isagoo oo 8 jir ah aabihiisna wuxuu geeriyooday 2 sano kadib Maxamed Siyaad Barre oo 10 jir ah waxa soo koriyay adeerkiis Xirsi Barre iyo ayeeydiis Saadiyo wuxuuna ahaa curadkii aabihiis Siyaad Barre haddaba raadiyo Muqdisho iyo wargeyska kacaankuba waxa ay qori jireen in uu Siyaad Barre ahaa halgamaa weyn una kamid ahaa ciidamadii uu hogaaminayay Cumar Samatar oo gumeystihii Talyaaniga la dagaalamayay una ku shahiiday aaga Ceel Mirikh oo ku yaala deegaanka Dhuusamareeb 1930 Xirsi Barre oo ahaa madaxweyne Siyaad Barre adeerkiis ahaana ninkii gacanta ku hayay waxa la dilay 3 sano kadib dhimashadii Siyaad Barre sanadkii 1933 sanadkii 1936 ayaa Maxamed Siyaad Barre ka soo kici timay degaankii haddaba u deganaa ee Ceel Gaab la socda qaybaha dambe